daraasaadu golaha shuurada Sacuudiga uu ka sameeyay inaan qasab laga dhigin in la xiro goobaha ganacsiga xilliga salaada ayaa waxa ay horseeday dood ballaaran oo ay dadku iskula wadaagayaan baraha ay bulshadu ay ku wada xiriiraan ee boqortooyada. dhowr warbaahin oo Sacuudiga laga leeyahay ayaa waxay tabinayeen in golaha Isniinta uu codeyn doono talada ay soo jeediyeen xubnaha kale ah Cara al-Subayti, Faisal al-Fatil, Latifa al-Shalani iyo Latifa al-Abikrim oo ay uga dalbanayaan wasaaradda arrimaha islaamka iyaga oo la shaqeynaya mas'uuliyiinta ay qusayso in aan qasab looga dhigi karnin goobaha ganacsiga in la xiro xilliga salaada maalinta Jimcaha mooyaane iyadoo arintaasi ay saameynayso goobaha sida kaalmaha shidaalka iyo farsamayaasha kuwa lagu sameeyo. xubnaha ayaa tilmaamay in tala bixintoodu ay dubdhaxaad uga dhigayaan in xiritaanka goobaha ganacsiga waqtiga salaada aanan lagu sheegin Qur'aanka Kariimka ama sunnada Nabiga nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee. marka aayadaha Qur'aanka Kariimka ah meelna kagama jiraan amar ah in la xiro goobaha ganacsiga in dadka arintaasi lagu qasbo ka hor inta aanay salaadu bilaaban iyo inta lagu guda jiro. haddaba dood arintaasi ay kala yihiin golaha shuurada Sacuudiga ayaa waxa ay dood kulule ay ka kicisay baraha bulshada ay ku wada xiriireen Sacuudi Carabiya. dooda dadka qaarkood ayaa waxay ku muujinayaan sida ay ku doonayaan in golaha shuuradu ay arintaasi ay u codeeyaan halka qaarkood ay warkayeen jumlada tala bixinta ee ku jirta in aan qasab laga dhigi karin ay tahay waxa ugu muhiimsan ee mowduucaasi ku jira sababtoo ahayd waxa ay u ogolaanaysaa dadka iska leh ganacsiyada in ay furan karaan ama ay xiran karaan goobahooda ganacsi hadba sida ay la noqoto arintaasi oo hab dhaxdhaxaad oo cado ah. kuwa kale ayaa u arka in waxyaabaha ay arintan ay ku baneynayaan ay soo bandhigeen xubnaha iyaga ay la wanaagsan tahay dadkuna ay u ogolaan doonto in danahoodu ay qabsadaan iyadoo aan culays ka haysan furitaanka iyo xiritaanka goobahooda ganacsi marka salaada la gaaro. dhanka kalena dadka isticmaala barta Twitter-ka ayaa waxay tala bixintaasi ay u arkaan in ay ahayd in waa hore loo soo jeediyo sababtoo ahayd waxa ay meesha ay ka saaraysaa in ay jiraan arrimo dheeraad ah oo dadka ku qasbaya in ay tukadaan. midaasi mid ka duwan dad badani ayaa waxa ay muujinayaan in amarkaasi oo cabsi ay ka qabaan maadaama uu imaanayo toddobaadyo kadib markii ay mas'uuliyiinta Sacuudiga ay go'aamiyeen in la habeeyo oo la xadido adeegsiga codbaahiyaasha ee masaajidada arintaasi oo ilaa iyo hadda si weyn dood in looga galo u baahan. mid ka mid ah dadka aragtida ka dhiibanaya arinkan ayaa tidhi haddii ay hoos ay u dhigeen sameecadaha lagu baahiyo aadaanka haddana ay leeyihiin waqtiga salaada goobaha ganacsiga ha iska furnaadaan haddaba maxaa haray. mid kale ayaa ku jeesteestay tala bixintaasi waxaana ay soo jeedisay oo ay tiri soo jeedintooda ha ku gaabiyaan oo kali ah in salaada iyo aadaanka ay ka mamnuucaan meelaha bulshada ay iskugu yimaadaan. dadka qaar ayaa dalbaday in la qaadaco goobaha ganacsiga ee furan xilliga salaada taasi oo ka hor imaanaysa sharcigan cusub ee Sacuudiga ka taagan waqtiga. haddaba bishaan aanu ku guda jirno bartamaheedii ayaa mas'uuliyiinta Sacuudi Carabiya waxa ay ku adkaysteen talaabo xadidaysa codbaahiyaasha masaajidada oo ahayd in aan laga maqli karinin meel ka baxsan gudaha masaajidka. wasaaradda arrimaha diinta ee dalkaasi ayaa waxa ay dabayaaqadii bishii May ay ku dhawaaqday in dhammaan sameecadaha masaajidada codkooda la gaabiyo oo aysan ka baxin 3 meelood meel waa midda ugu hooseysa ee heerka sameecada ugu sareeya in aan la gaarsiin karinin. wasiirka arrimaha diinta Cabdulatiif al-Sheikh ayaa sheegay in talaabadani ay jawaab ay u tahay cabashooyin ka imaanaya dadweynaha. hase yeeshee talaabadani ayaa aad dood ugu dhalisay baraha bulshada waxaana markiiba bilowday baaqiyo lagu baahinayo internetka oo ah in la mamnuuco codadkooda dhaadheer ee muusigada ee ka shidan maqaaxiyaha taasi oo bedelkeeda u noqonaysa in meeshaba laga saaro dooda iyo sidoo kale muranka soo jiitamay. haddaba adiga sidee ay kula muuqataa doodani Sacuudiga ka dhalatay oo haatan la iyo dadkii shacabka ah ee baraha bulshada ay isku dhagan yihiin madaxdii ugu sareysay.